cimiladu waxyaalo badan bay dalka ka qabataa sida rag ugu horreeyayba sheegeen ma raba inaan wada guud maro laakiin hadda tan aynu u fadhinaa waxay ku saabsan tahay wacyigelinta qaybta wacyigelinta deegaanka iyo ahmiyadiisa qayb ka mida weeye waxayna specifically taabanaysaa ama ku wajahan tahay waa sidii loo yareyn lahaa isticmaalka dhuxusha haddii la yidhaahdo deegaanku waa mawduuc aad u ballaaran ama ha noqoto ilaalinta deegaanka ama ha noqoto hagaajintiisa iyo wax kusoo kordhintiisa waa mawduuc aad u ballaaran laakiin mawduuca kan hadda aynu ka hadlayna oo halkaan u fadhinaa oo tababarkaani lagu baranayo wax badan oo ku saabsan waxa weeye mawduuca dhuxusha sida loo yareyn lahaa sida uu wasiir qarjab u sheegay dhuxusha lama joojin karo oo hadda badiilkii ma hayno laakiin waa la yareyn karaa si fiican baa loo yareyn karaa waxaa lagu yareyn karaa tiro badan waxaa ka mid ah burjikayaasha dhuxusha loo isticmaalo qaar waxaa jira la yidhaahdo burjikayaasha tashiilka waxay tashiilaan dhuxusha way ku shaqeeyaan dhuxul wayna ku shaqeeyaan qoryo ama xaaro labadaba burjikayaashaas markii dadku ay ku bedelaan burjikayaasha caadiga ahaa ee ceelbuuraynu ku keeni jiray dhoobada keliya ahaa wax weyn baa isbedelaya waxaa dhici karta reerku intii uu hal meel wax ku karsan jiray inuu saddexda waqti wax ku karsado baa dhici karaysa marka aynu wanfeer isticmaalka dhuxusha ay reerkaasi hoos u dhigaan waxaa kaloo ka mid ah qaababka lagu yareyn karo dhuxusha in la isticmaalo gaaska cuntada lagu karsado gaaskaasi hadda waa mutawafir wey waa laga helaa waddanka ama ha noqoto magaalooyinka ama ha noqoto degmooyinka yaryar xataa waa laga helaa xoogaha waxaa dhib ah oo ka jira waxa weeye qiimihiisa wax yar ka qaadisan dhuxusha runtii haddii la fiirsho reerku halka umbuubo uu isticmaalayo sidii uu duqa magaaladu sheegay isaga xaafadaha inooga warroore wuxuu inoo sheegay in uusan kharashka laftigiisi farqi weyn ku jirin wasaaradda arrintaa laftigeeda dadaal bay ka wadaa ilaa muddo mashruuc soo jiitanayay baa jira oo gaaska ku saabsan oo aan filayno inuu insha allahu tacaala xukuumadda soo socota la jaanqaado mashruucaasi waxa weeye diboot gaaska markab intuu keeno hal meela lagu shubo oo markabkaas hal meela laga wada shubo in laga sameeyo dekadda boosaaso kadibna ganacsatada hadda ka shaqaysa gaaska iyo wasaaradda iskaashanaya in ay sameeyaan maxadooyin ama dibootyo yaryar oo kale oo gobollada iyo degmooyinka iyo kulli ku yaalla marka waxaa sahlanaanaya umbuubadii laga soo rarayay dubay ama yaman oo markii ay faalo noqoto haddii la celinayay hawshaasaa meesha ka baxaysa gaaskiina gaas jimbool ku soo qaatay oo hal markabaad soo qaadatay buu noqonayaa marka qiimihiisu aad buu uga jabaya hadda sida uu yahay arrintaasi waa arrin kaleeto oo insha allahu tacaala wasaaraddu ay soo wado wacyigelintan oo kale baa ka mid ah waxyaalaha dhuxusha lagu yareyn karo in la iswaraysto sidee dhuxusha u yareyn karnaa dhuxusha dhibaatadeeda inaynu yarayno waxaa muhiim u ah geedka la gulayo oo dib loo beero caalamka dhirta waa la jaraa haddaan dhuxul laga dhiga xataa wax baa laga dhigtaa iyo hawlo badan baa lagu qabsadaa dhirta ay caalamka jaraan inagu ma jarno ma yelihin intaasi wax u dhow laakiin inaga mushkiladeenu waxa weeye intii yareed aynu haysanay waynu jaraynaa mana beerayno sidii marka haddaa presentationka laydinku sheegay in la sameeyo dadka dhuxusha ka ganacsada la register gareeyo ganacsi laga dhigo ururha laga dhigo iyo iskaashatooyin register garaysan qoladooda meesha ay ka shaqaynayso loo xadado lagu qasbo inay beeraan dhirta ay gulayaan ay noqoto dhir ay beeraan sida ugaadha oo kale ugaadha waxaa la diidaa in la dilo waa mamnuuc shuruuc baa ka taala dalka
hal neef oo ugaara sagaalaha ma noqoto ama dabagaalaha noqdo in la dilaa waa mamnuuc waana wasaaradda shaqadeeda arrintaasi siday u ilaalin lahayd marka waxaa jira ugaar aysan dadku u rabaan ama dawo u rabaan oo duurjooga ama ay maaragtay xataa gaaja u geyso oo hilib ahaan u rabaan marka waxaa la rabaa qofka ugaar dilaya horta inuu ugaar beero inuu leeyahay beer lagu xanaaneeyo masala ka soo qaad gobayda oo kale oo meelaha ugu badan xoolaha ugu badan ugaarta walaayo ka mid ah qofku gorayaa dhaci karaa gorayadii uu dhaqanayay badnayd inuu gasho iyo inuu dhoofiyo iyo inuu magaranaysa ka ganacsado midna loo diidi mayo laakiin waxaa la diidayaa wixii yarka ahaa ee hantida gaarka ahaa ee guud ahayd oo dadka kaga dhaxaysay inuu ku takirfalay wax la diidaya sidaas ayaa dhuxusha haddii dadka dhuxusha guraya ay geeyo beeraan inay markaa iyagu dhuxushii gubaan waa loo ogolyahay oo geedahooda ay beeraan bay gurayaan laakiin waxaa mushkilada markii geed intuu baabuur qaato iyadoo geedkii la raadinayo markuu helo oo gubo inteedoo kale oo haddaba geedaheediina magaara uu dusha ka saaro dabkiisa uu ku qaxmo oo iyadoo laga dhiminayo dadku waxay ku baraarugsanyihiin dhirta waaweyn oo dhuxusha laga dhigo sida quraxa iyo galoolka iyo waxaa dhibta gaartay laakiin waxaa ka sii daran dhirta yaryar oo xambuska ah oo dabka lagu shigayo oo shakarka ah markii sida ka muuqatay ramaali ahaan loo saasaarayo oo iyaga loogu talagalay inay dhammaadaan ay gubtaan baa ka sii daran marka halkaan marka waxaynu isugu weyn waxa weeye sidaynu u yareyn lahayn tababarka dadka ka qaybgelaya waxay qaadan doonaan waxaa hadda anagu aanu sheegayno wax ka badan oo ma garanaysaa ku saabsan sidii ay iyaguna dadka usii gaarsiin lahaayeen yareynta isticmaalka dhuxusha anuu hadalkayga intaa kusoo koobaya waxaan jeclahay inaan aad iyo aad si gaar ugu mahadceliyo hay-adaha nagala qayb qaatay mashruucan iyo mashaariic badan oo deegaanka ku saabsan oo ay hadda nagala joogaan hay-adda UNDP aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa sida ay nooga garab qabtaan mashaariicda noocan oo kale ah sidoo kale hay-adda EU oo iyada laftigeedu falkii bixisay ama doolarkii ahayd iyo hay-adaha kaleeto iyaguna saasoo kale la garab istaaga ama WFP ha ahaadeen ama FAO ha ahaadeen ama kuwo kale badan haddaan halkaan ku koobi karin waxaas iskaashi marka iyaga iyo wasaaradda ka dhexeeya bay howlahan oo dhan ku qabsoonayaan waa mahadsan yihiin